kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube-keena kalamaan warkalamaanay abwaan bacadla shoonka hadda ka hor wuxuu yidhi quwadiya markuu taag isbidoo kibir isqaad qaaday maroodiga markuu soo qabsaday qalabna soo saartay shimbir dhagax qanintaa abraha qoorta loo suray asxaabulfiil waxaa qarribay qaraxyadeedii qacmidkay ku siisaal durbada qiimo beel noqoy quwaddaas ilaah baa iskale u qaas tahay qiso iyo tusaalay u tahay qoonka weli nool intaan ciidda meel laga qarxiyeyna la qaniinsiinin qayaanada inaan dhaafno iyo qaladka Soomaa waraxmadow xilliga asxaabulfiil qaraxyaduna ma jireen aryaadhaha horta dayuuradan daroolis la leeyahay ma shimbirahaasaa laga metelay war shimbirihii ilaahay asxaabulfiil u diray dhagaxa qofkay u wadaan lama iseegayn mid kastana magaciisu wuu ku qornaa warnamiyow qiyaamaho lisaasuda malanka maamudnaada wal isgaawiyo wala ari lan walbina galadkii usgay goortisa la saare iriidina gaansi bawan jawan nisheene marka lan walbow hadtanteeda nool hisaabtan hore waxaa loo yiri khasaara waa qabataan ninkii khamaar dheelo aryaadhaha waxaa la yidhi qaraxiyo qayaaniyo qayaaligan la qaadama qaraxiyo qayaaniyo la qaadama qayaaligan war cabdilla waxaa kaloo la yidhi geerida ilaah baa qadaray qoorta noo sudhane qof waliba mar buu dhimanayo oo iilka loo qodiye dharaartii qayaamana asagoo qaawan buu tegiye qosol iyo farax baa u yaal qayr midkii falaye midna qooma ma u taalla iyo hawl qamuunye leh wargaboosow Soomaaliya ma joogta xilligii maalinba qof la soo aasi jiray tarab baa dadka loo laaya maalin dhaweydna wadada ugu jaamka badan waxay ahayd jidka qabuuraha gala horaan waxaa loo yidhi qososha iyo qayli sidaabo khabri waa ku qarsahaa war waxaa kaloo la yidhi qabri iyo nin loo wada lama kala qariyo warkalamaanay saad sheegteen dhimashadu waa wax ilaahay qadaray oon la dhaafayn laakiin geeyigeenna sababta geeridaa ku badan sababtoo ah Soomaalidu qori bay shaqo ka dhigatay kadibna masiibo qarxaysaa u timid waxaan se la yaabanahay masiibooyinka dhacaya maxaa waxa la isaga weydiin laayahay oo mas'uuliyadda cid u qaadi laada marli waa iyo mashaakil oo na soo maagi in leeska moosana maaha waa ku jirtaa war abdallow wamal hayaatu dunya ila mataa'ul ghuruur ma inka darwayti maanyadii miyaa soo fakatay maroodiyo muuda cali maanyada mooyaa ku jira ma maqli miya warnimayow nin la yidhaha maxamed gafaanjo gabay tirshe wuxuu yidhi xamar weyne roob baa ku da'ay waadna maqasheene intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin koo kalena waliba eray oo ku hoobiyaal badan la faniini limagna dheemishi wala haayeen rungi been wali atuma goradaan warkama siinka badiyaw aryaadhaha kalamaanay habeenkii hoobiyaa dhece maheer habaarkii yahuufa habeenkii hoobiyaa dhece maheer habaarkii yahuufa war cabdilla waxaa kaloo la yidhi dhugta iyo higtiya dhagagacda iyo dhiigga daadanaya dhan kaleeta weeyaan macnaha loo dhutinayaaye islaamnimo ka dheer waayahan dhaqanka muuqda emaderow dhan kalaag oo socotaane dhegalaay wax maqal ma dheegi jirne war kalamaanay anigu waxaan la yaabanahay sida shabaab loo galaya hoga oo dadka shabaab xilligan galayahay ma waalan yihiin angoolow ciyigii waa ka beriyay ciyigii waa ka beriyay ninkii cunayba ka liita miyaadan maqlin war waxaan la yaabanaa idinkaa ka sii yaab badan anigu waxaan la yaabay war miyaadan maqal in dhaweydba yaab dhaliya yaababaa jire ummad yaab la yaab lee ku dhacay oon iskula yaabin yaabkay iskala yuururtana uunku kula yaabay oo yaabba yaab kala bado yaabban baan nahaye yaabbanay yaad la sugi yaabka ka hor yaalla war axmedow al-shabaabkii naga yaabiyaa yaabban maalmahane maxaan yaabka kula yaabayaa laysla wada yaabi war idinkaa yaabban oon idinla yaaba yaabna idinma sheegi karee warka iga dhegaysta gaboosow sideed noo la yaabe la yaabe la yaabe la yaabe yoon baadna gelise war cabdillow idinkaa iska yaabiye yaabkan cid kale ha la aadine maalin kasta dhallinyaradan u soo diyaargarowday inay dalkooda difaacaan ee xidhanacnac lagu qarxinayo taliyayaasha isu keena ee yidhaahda ciidan baa laydiin qorayaa amnigooda ma difaaci waayeen mise yaabaya ninka wax qarxiyaaba xidhanacnac buu joogaa war mar kasta anigu waxaan maqlaa xidhanacnac ayaa lagu qarxiyey dhallinyaro ciidan loo tababarayey weliba nin soo dhex galaa isku qarxiyaa la yidhaha mar kasta welina cid tilaabo looga qaaday dhallinyaradaas ay ammaankooda sugi weysay ma aanan maqal mana arag marka waxaan la yaabanahay mashruuc iska furan oo lagu heshiiyey inaan wax layska weydiin miyaa wanacnacina ma aqaane carruurta nacnac raadin
aadin jirtay xeradan General Dhaga badan baa la yiraahdaa waana dugsi ciidanka lagu tababaro war magacii la doona hal dhahe meesha ciidamada ma lagu tababaro mise waa lagu qarxiya war General Dhaga badan haliyay geesiyo wahay qawaarijtana wuxuu u yaqiinay jidii jahdiid aakhirkiina inta hotel saxafi ku soo weerarayna isagoo la dagaalamaya ku shahiiday marka xerada maalin kasta dhalinyarada lagu dhamaynayo General geesi ayaa loogu magac darine magaceeda nacnaca loo dhaafo dugsi dhahanta laga galo miyaa layska dumiyay elen doqoni alaaf malay alaaf doqoni alaaf malay yadheegi jari war miyaadan maqli jirin darbi caga weyn waa wax doqono darka loo dhigo way iska dumisaa hoobe gambosow ileen doqoni eebka ma kacde damankay mermerisa miyaadan maqlin wargooyin anigu waxaan la yaabay hoobiyayaasha xalay dhugta ku hayay dhagahana xanuujiyay waxa la yiri dheemish bay ahaayeen inkastoo isan iga dhaadhicin aniga warkaas haddana waxa isweydiin leh hadday daacadi jirta ka dheemishka soo riday maxaa loo soo qaban waayay oo hadda ma waxaad naga dhaadhicin rabtiin shabaab asxaan sameeyo dheemish soo riday ariya haddayba run tahay inuu dheemish ahay kii xalay mid run hay waayeen asxaan ha uga fadhina kuwaas war calaa kulli xaal ama dheemish ha ahaadeen ama ha noolaadeene dadkii falkaa ka dambeeyay boolisku gacanta ma ku soo dhigeen war xogta amnigu waxay sheegaysaa shabaab markastoo xaaladda ku xumaato waxay ka aarsadaan shacabka war hadday ku xumaatay haddii kale ma hawl kale leeyihiin oo warka iga dhaxgeline bulshadu inay feel jignaato oo hay'adaha amniga lala shaqeeyo waa lagama maarmaana la yiri war anigu waxaan ku talin lahaa meelaha dadka badan iskugu yimaadaan joogistooda in la yaraysto baar fadhiga badan iyo geedaha la hoos dhooban yahay laga sikada miyaa tiri war anuguna bulshada waxaan kula talinayaa qof kastoo qofkaad ka shakiso ilaa aad hubisay uusan kaa fakan wargooyin qawaariijta la soo qabto yaa qabaayo adiga wah keebay kas war guryaha ay ku dhuumanayaan ha loogu galo naftu mar bay baxdaay aryaadhaha saaxiibkay Xuseen Barre waxa uu yiri dhimasho waa dhigantoho dhumasho kugu dhaafime dhimasho waa dhigantoho dhumasho kugu dhaafime war ma haysiina waxa la yiri howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen ciidanka gaarka ah ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA waxa qorto looga jaray 22 qawaarija waxaana la sheegay howlgalkaasi uu ka dhacay shabeellada hoose warayaantan waxa la yiri NISA ma aha nisadii hore hawl adag ayayna wadaa oo xuraan iyo dagaal isugu jirta war hadda NISA shibdhe oo shabdhe miyay shaqada ku wadaa war markii shacabka loo diri jiray ma aha baa lagu yiri siyaasiyiintana ma ka qallayeen war NISA hadda mucaarad ma raadisee qawaarijtay raadisaa oo hadday mucaarad arkaan ama juuq u leeyihiin war NISada hadda mucaaradnimo dambe ma aragaasa mucaarad siyaasadeedna dambe ma hadda ma salaad shaqadiisa masqabsahooya usoo shib waliba joogan arna war nabad sugid ogaata cadowga gurigu ku jiro iyo godku ku dhoonto waa loo baahnaa war nabad sugid hadday sidan shaqada u sii wado insha Allah cadow waa soo afjarmaya waa shabiha war ma haysiina ra'iisul wasaarihi hore maxamed xuseen rooble wuxuu yiri waxaan diyaar u ahay dagaalka qawaarijta inaan ku dhinto qof kasto Soomaaliyana waa inuu u diyaar garoobaa in cadowga la iska xoreeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahana lagu garab istaago go'aankooda cadowga lagu dagaalamayo aga war roob la hadda ka hor waa kii yiri haddaan dhinta meydkayga yaan la aasina doorashadu ha socoto eegan ma wuxuu leeyahay dagaalka shabaab inaan ku dhintaan diyaar u ahay war ra'iisul wasaarihi hore rooble waxaan arkay Yurub asagoo banooni ku dheelaya maqawaarija Sweden joogto la dagaalamaya aryahan goolow run ma leesu sheego roor marone rooblow sideed rabtaay war Sweden dagaalka shabaab kama socdee rooblow run miya wan dagaalamaya run miya rooble Sweden waa ka imaanaya qorigiisuna qaadanaya ma idinka diidaya inay run noqoto bismillaahiyo adaa soo baxay baas ma jira masjiri war wasiir ku xigeenka warfaafinta Cadaala oo saaxiibkiis rooble la joogay Sweden oo ka hadlayay xaflad soo dhaweynay baroodiq isugu jirta wuxuu yiri dagaalka shabaab lagu jiro insha Allah muddo kooban la soo dhameynaya macawisleydana waa dad shacab ah oo aan siyaasadan kale lahayn balse noloshoodii iyo deegaankoodii lagu dhibay oo dulqaadan waayay oo go'aan ku gaaray inay iska kiciyaan cadawga dulmiga ku haya ceelashii ka duugan miyuu yiri war maalin kasta xoolo baaday ka qaadaan aryaadaha samigay Cabdullaahi macaawisley iyo dhibaatadii lagu haaya ka waramayna waxa uu yiri
waxay saanooyin ku sabreen sanduule iyo sekabad waxay saanooyin ku sabreen sanduule iyo sekabad war cabdulow allaha kaa cafiya cadaala ma shirbine warawowood la jannee war ma haysaane ra'iisul wasaare xamse cabdiyaar eegadan baa wuxuu la kulmay dhakhaatiirtii maalin dhawey jabuuti ooga timid qaraxii sooba ka dhacay dadka ku dhaawacmay si ay ugu gurmadaan ra'iisul wasaare aarna wuxuu yidhi jabuuti waa walaalaheen waa gacal aan shalay u gargaarnay markay ay xorriyadda u dirirayeen soomaaliya sida ay u burburtayna waa ina garab taagnaayeen eedda dhiig iyo dhalasha naga dhaxayso waa waajiba soo dhowaaduu yidhi dhalasha dheel maahan dhiiggeen waa laisku dhaqaa masiri ileen sinjiga ma mayrmo ileen sumada ma guurto afkaagu ileen ma suulo sokeeye ileen ma daalo war kalamaanay war ma haysiin amar culusaa soo baxay marshaa loo dalki laakadeediyey hubbalaqaata maa la yidhi war qofkan dagaalamin waa dembiile halla qafaala miyaa la yidhi war maalin dhoweed madaxweynuhu wuxuu yidhi soomaaliya meel dhexoo la istaago maanta ma laha ee ama shabaab noqo ama kan la dagaalamayo noqo bilaay ma naga dhaaftiino war horta dhexdhexaad lama ogolo miyaa la yidhi war allah u naxariista abwaan cabdulla raaga wuxuu yidhi hadda ka hor dhankaas maa u kacdaan quraacdu ay u dhacayso oo dhankaas maa u kacdaan ay ka soo dhalanayso dhexdhexaa idin taagay dhulku ha idin laqe war amaraan idiin sheegay meeshaan fikir kama furnee maalin dhoweyd culimmada soomaaliyeed iyo wasaaradaha awqaafta arrimaha diinta ee federaalka iyo maamul goboleedyada waa kuwii shir maalmo socday go'aanka soo saaray waa kuwii dhaheen nimankan lala dagaalamayo waa qawaarij waana in ummadda soomaaliyeed sidaas ugu yeeraan oo u ogaadaan laakiin amarka hadda soo baxay wuxuu yahay wasaaradda diinta iyo awqaafta waxay tiri wax kale looguma yeeri karo waana amar in qawaarij la yidhaah sababtoo ah waa yihiin lamana rabo in ummadda la jahwareeriyo marka kalemaanay waxaan ka baqayaa idinkoo shabaab leh in godka jilcow laydinku guro afkii sheega ma dhaafto sheekh fir shuruugga ku raaco war buda ma taro war ma haysaane guddoomiyaha kacdoonka halgama cali jayte ahna guddoomiyaha gobolka hiiraan ahna madaxa mashruuca madaxyada shabaab ayaa muqdisho soo gaadhay maanta shacabkiisa balle waxa suuqaa u aaraynaa nooh mau yidhi war adinka safarka guddoomiyaha maxaa u kashifaysaan ma khawaarijtaa taageeraysiin war ma hay sida cali jayte hiiraan cayayaan wuu ka nadiifiyey baylaha gaada ku buufiyey aniga waxaan rabaa dadka magaca leh goboladan degaa inay isxoreeyaan nooh miyuu yidhi xamar la nadiifi noo masdhay wargooy ninkuma madaxyadii shabaab buu hiiraan ka soo waayo oo xamar u soo doonay war shabaab ka soo baxsaday inuu daba joogaa soo ma dhici karto war ma haysiine xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi saraakiisha dhallinyarada ee aan ognahay mushaarkoodu intuu yahay ee guryaha waaweyn oo dabaqyadaa dhistay ee dalxiiska iyo tamashlaynta ku jira xaggay ka keeneen dhaqaalahaas amniga laga sugaayese ma layska hubiye warnamiyo war mahaytan wasiirka arrimaha gudaha Ahmed Macalin Fiqi baydhawajinaa dikkaari warmaday wallahi badbaadiyay sidee wax u jiraan war digdaan sheego baasma ee waa ku degtitay isin raasangu waliina wada hadal leeyahay koonfur galbeed dalka sidii lindifa allahay mislun hormari lahay la kuwada doo kala ma bajiro barax maka rawiye barfuunka le iigu banay masiri war abdulow meelaan ku dahwi ma gordo korto biriyay hadalka qaada miyad beled ka dhaafta dhulka kale ee u badan tahay baydhabo ma gaarta war ma isina taliyaasha ciidanka Puntland iyo Somaliland war kulula dhaxmaray horta waxaan hubaa rasaas kulul war kulula ka ron war isa badayno wada hadalno ku fayle taliyaha ciidanka Puntland wuxuu yiri Somaliland argagixisaday maal gelisaa ciidankooda soo gurguuranayaan fidnay soo wadaan dagaalka shabaab lagula jiro ayayna dhabar jabinayaan oo naga sii jeedinayaan taliyaha Somaliland oo u jawaabayna wuxuu yiri annagu dagaal uma degdegno uma socono wuxuu yahayna waa naqaan ciidina daandaansataa hina dharbaxsho kulul bay naga heshaa welina xuduudeeni ma aanan gaarin buu yiri Somaliland war kama hayside gudiga diiwaangelinta ururadu maanta waxay ku dhawaaqeen 9 urur oo ka soo gudbay madax taabashadii waxayna kala yihiin urur siyaasadeedka waabari urur siyaasadeedka shacabka urur siyaasadeedka horseed urur siyaasadeedka rajo urur siyaasadeedka barwaaqo urur siyaasadeedka hillaac urur siyaasadeedka mideeye urur siyaasadeedka ogaal iyo urur siyaasadeedka kaah warada gooneen qaar ba magacyada shirkadaha leh ma lagu og yahay diinley ariira lakadaahiye
diin ley ariira likadaahiye yadheegi jari war gaboosow waadinkii dhihi jiray puntland somalilan bay koobiyeysaayeen urur siyaasadeedka kahna deni baa leh urur siyaasadeedka horseedna faroolaa leh markasoo koobi cusub maaha war hortana kaah shirkada ankorade horseedna kooxda ciidanka xoogga dalku war miyaadan maqli jirin darbi caga weyn waa wax doqono darka loo dhigo way iska dumisaa hahoobe gaboosow ileen doqoni deebka maakacde daamankay mermerisaa